Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum. Dagaalkii labaad adduunka waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay mid ka mid ah dagaaladii ugu xumaa ee taariikhda aadanaha maxaa yeelay waxaa galaaftay nolosha in ka badan 70 milyan oo qof wuxuuna ku dhamaaday guul taariikhi ah oo ay xulufadii ka gaareen naasiga Jarmalka. Mareykanka iyo xulufadiisuna waxay noogu muujiyeen guushaasi dukumeentiyo badan iyo filimaan baaxad leh ee Kiligitaliska Adolf Hitler iyo xasuuqii uu u geystay xuquuqda dadka aan waxba galabsan iyo sida uu u doonayay inuu adduunka u qabsado una burburiyo. Dhanka kale waxayna tusaysaa heerka geesinimada xulufada iyo sida ay naftooda u horeen oo ay ula dagaalameen iyo sida ay u badbaadiyeen adduunka. Laakiin daawadaha qaaliga ah oo in geesiyashani ay leeyihiin dhinac kale oo ay ka buuxaan xasuuq iyo caburin waana tan aan uga hadli doono muuqaalkeena. Waxaan ka hadli doonaa oo kaliya 3 dal oo xulufo ah waxaanan ku bilaabi doonaa Faransiiska. Dalkani inkastoo oo uu sheegto inuu ixtiraamo xuquuqda aadanaha, taariikhda ma ilaabi doonto dambiyadii uu ka galay dalalka Afrika ee uu gumaysan jiray. Xasuuqii 8 May 1945 ee Algeria oo ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo qof iyo sidoo kale tijaabooyinkiisii ay ku aadanaa nukliyeerka uuna ku riday saxaraha Algeria ay ku nafwaayeen in ka badan milyan iyo bar Algeriyaan ah intii u dhaxaysay 1954 ilaa 1969 xilligii kacaankii Algeria. Sanadkii 1994 Rwanda waxay ka geysteen xasuuq ay ku dhinteen in ka badan 800,000 oo qof ah marka lagu daro xasuuqyo badan iyo gumaadyo aanan xusin. Si uusan muuqaalkan u dheeraanin, Faransiisku wuxuu ka ganacsan jiray addoomo ka mid ah gumaysigii uu ku haystay sida Senegal, Ivory Coast, Benin. Wuxuu kaloo u adeegsan jiray dagaalkii koowaad ee adduunka oo wuxuu gelin jiray safka hore marka lagu daro dhaca hantida dalalka iyo kheyraadkooda. Haddana waxaan ka hadli doonaa dal kale oo ka xun oona ka dambi badan Faransiiska kaasi oo ah Ingiriiska. Wuxuu gumaystay ku dhawaad 90% dalalka adduunka taariikhda oo dhan, taasi oo ah 200 oo dal ah waqtiyo kala duwan. Taariikhdiisuna ma ahan xasuuq iyo xuquuqul insaan la'aan. Tusaale ahaan dagaalkii Boer War 1899 iyo 1802 dadkani badankooda waxay ahaayeen haween iyo caruur waxayna ku hayeen Ingiriiska xeryo. Taasina waxay keentay ku dhawaad 28,000 oo qof ah inay dhintaan. Kenya gudaheedna intii lagu guda jiray kacaankii Mau Mau intii u dhaxaysay 1951 ilaa 1960 Ingiriisku wuxuu xiray xubno ka tirsan qabiilka Kikuyu waxaana la qiyaasay 200,000 oo qof in ay ku dhinteen. Sanadkii 1943 ilaa dad gaaraya 4 milyan oo Bangaalis ah ayaa u dhintay macluul. Sidoo kale wuxuu xasuuqay oona u geystay xasuuq malaayiin Hindiyaan ah si uu u dhaco dalkooda hooyo uguna dhaco hantidooda. Ugu dambeyntii waxaan ka hadli doonaa dalka saddexaad gaar ahaan Mareykanka. 1899 waxaa qarxay dagaalkii Mareykanka iyo Filibiin waxaana ka dhashay dhimasho 220,000 oo Filibiin ah badankooduna waa rayd. Kadibna wuxuu ka qayb galay Mareykanka 2 dagaal adduun waana ognahay wixii ka dhacay. Kadib dhamaadkii dagaalkii labaad adduunka markii ay tuureen 2 bombo oo nukliyeer ah gudaha Japan, in ka badan nus milyan oo Jabaanees ah ayaa la dilay. 1950 waxay ka qayb qaateen
dagaalkii Kuuriya. Tirada ugu badanna Kuuriya ka dhimatay waa 2 milyan iyo bar oo Kuuriyaan ah. Kadib waxay haddana gumaysteen Vietnam 1965 waxayna halkaasi joogtay 10 sano. Waxayna dishay 2 milyan oo Vietnamese ah. Waxay ka qayb qaadatay dagaalkii sug muuqaalkii baa fogaaday aniguna daalay. intaan baan ku soo afmeereynaa muuqaalkan kan xiga ayaa inoo balan ah hadduu alla idmo insha Allah.